degmada Ceelafweyn oo kamid ah degmooyinka ugu baaxadda weyn Soomaaliland ayaa haatan waxa ka taagan xaalad abaareed oo aad u qalafsan iyo waliba biyo la'aan baahsan oo saameysay dad iyo dunyaba iyadoo aanay wali ka curin roobabka guga degmadaas iyo deegaanada hoos yimaada maanta waxa si wada jir ah baaqayla dhaan ah ugu diray xukuumadda Soomaaliland iyo gudida abaaraha iyo waliba hay'adaha samafalka maayir ku-xigeenka degmada Ceelafweyn ana ku simaha maayirka Master Hindi iyo qaar kamid ah golaha deegaanka iyo waliba dadka ay saameysay abaarta qalafsan oo sheegay inay la ildaran yihiin iyaga iyo dunyada ay wataan baadiye biyo la'aan isla markaana ka codsaday xukuumadda Soomaaliland gudida abaaraha iyo cid kasto gurmad bilaadantinimo ka geysanaysa abaaraha qalafsan ee ka jira deegaanada degmada Ceelafweyn inay la soo gaaraan gurmad degdeg ah iyagoo arrimahaas ka hadlayna wax hadaladoodii kamid ah cid loo qayliyo oo ilaahay ka weyn ma jirto anigu ismalihi cid aan ilaahay ahayn u qayliya waayo xukuumaddu waxaad moodaa inay cid gaar ah ama gobollo gaar ah oo ay danaynaysa ay jirto oo ay abaartu keligood haysato gobollada bari wax gargaar bilaadanimo ah oo ka soo gaaray xukuumadda Soomaaliland haba yaraatee ma jirto degmadan aynu taaganahay waxa ka soo gaaray xukuumadda dhan 20 booyadood oo biyo ah iyo raashin la yiri 200 oo qoys raashinkoodu weeye muddada dhan inta leeg abaartaas jirtay ee biyalaantaas jirtay ee xoolahaasi abaarta ku jireen iyo dadkaasi dad iyo dunyadaasiba ma ay jirto wax ka soo gaaray xukuumadda ay gargaarka ay bixisana cid kasta oo wax kala garanaysa way arkaysay xaddiga uu leeyahay marka waxaan u maleynayaa gobollada galbeedka oo quraay weeye Soomaaliland ceelkeedina waad aragtaan oo waa kaas saas u qalalan yahay kii dadku cabiyay kii xoolaha hadalkeeda badaaba ma jiraanba marka xukuumadda hadii ay xukuumaddaasi jirto aan waxaan la xukuumaddaasi indha gaar ah ku eegto shacabkeeda iyo xoolaheeda iyo dadkeeda waa dhul fara badan oo baaxad badan leh gargaar degdeg ah si dhaqso ah loo soo gaaro halkan waxay keeneen mar hore 20 booyadood waxaasi waxa la wadaan qoyn xafan waxaasi waxba kamay tarin waxaan leenahay xog ka hela dadkaasi waa dad aad u liita waqti ku kulaaday waxaan oran lahaa hal la soo gaaro madaxweyne iyo guddi iyo madaxweyne ku xigeen hal la soo gaaro caawimo in la soo gaaro gargaar xaaladda abaareed oo jirta oo sii daraatay oo hadeerto halkii ugu dambeysay maraysa haday tahay kuwa miyiga xoolaha miyiga dadka miyiga iyo dadka magaalooyinka tanaan ka hadlayana waa xaruntii degmada Ceelafweyn oo iyadu 6 bilood dabeecad waxa ay ku nooleed marka xaga biyaha laga hadlo inkastoo aan aragnay wasiirkii biyaha biyo ay iibsadaan hooda ay ma jiraan meelo wax yar ku shuxshuuxeen oo aan biyo gelin oo halkan imika taaganahay kamid tahay aragtaan iminka dhulkan bay haysataa aad iyo aad gaadiidku ma dhaansho hadaa la kuriyo arigu ma arooro hadaa la kuron yahay cusana ma jirto doogna kama mujiyay haddii xilka saaran yahay oo marka foodka la doonayo uunaan la doonayn ee hadda loo baahan yahay waa ay dadka yihiin hal lala soo gaaro booyado iyo cunto laakiin wax ilaa reegaa urwagasaad waa firish ilaa dogobna waa firish yaa ilaa Ceelafweyn waa firish gargaarka waxaanu madaxweynaha in gargaar lala soo gaadhaan si kastaba ha ahaatee abaartan ayaa ah tii ugu darneed ee soo marta abid deegaanada degmada Ceelafweyn balse aan la garanan waxa ay indhaha uga qarsanayaan xukuumadda Soomaaliland iyo waliba gudida abaaruhu abaarta qalafsan iyo waliba biyo la'aanta baahsan ee ka jirta deegaanada degmada Ceelafweyn iyadoo dadkaasi aanay wali wax gurmad ah ka helin xukuumadda Soomaaliland iyo gudida abaaraha sida ay noo sheegeen Axmed Mursal Soomaali News Ceelafweyn.